fursadan waxaa ka faa'iidaystay durbadad aad iyo aad u badan oo Soomaaliyeed oo adduunyada meelo kala duwan jooga walaalayaal haddaan ogeysiis yar bixiyo liidarada qolka ku jira fadlan ha loo baneeyo walaalaha ma garanaysay cusub sidoo kale dadka bilaab mikrofoonka ah almost wada meeting maqashaan ma sha Allah codka si fiican wada maqashaan kulligiin idinkana soo dhawaada walaalayaal waayahay walaalayaal warbixinteedii waynu iska bilaabanaynaa magacaygu waa Cusmaan waxaan ahay senior manager for Ever Living Product Company shirkadda waxaan ku jiraa sanad iyo 9 bilood shirkaddan waxaan u aqaanaa shirkaddii noloshayda bedeshay shirkaddii Soomaali badanna noloshooda bedeshay baan u aqaanaa waa shirkad aad iyo aad noogu qaaliya waa shirkad runtii aan wada jecelnahay because waxayna siisay fursad aad iyo aad u dahabiya walaalayaal fursadaasi waxay noo ogolaatay inaan walaalo badan oo adiga iyo dad kaleba aanu la wadaagno oo iyagana noloshooda aanu saameyn ku yeelano because annaga laftigeega waana la wadaagay walaalayaal waxaanu samaynaynaa waa isbedel qofku markuu samaynayana waa inuu isbedelkii u diyaar garaysan yahay waa inaad fikirkaaga bedesho marka hore kadib waa inaad ficil qaado oo tallaabo la timaado insha Allah waxaad rajaynaysaa dambana wuxuu noqonayaa noloshaada isbedesha walaalayaal qofku guud ahaan waxa uu income ama dhaqaale u soo saari karaa 4 qaab laga yaabaa mid ka mid ah ama 2 ka mid ah inaad hore u soo saari jirtay habka koobaad waxa weeye inaad marka koobaad inaad ma garanaysaay employee tahay employee waxa weeyaan waa qof shaqaale ah waa qof mishaar qaata bishii 7 to 9 aroortii 7 subaxnimo soo kaca ilaa habeenkii shaqaynaya mishaar cayimanna qaadanaya bisha markuu bilaabayo ayaa waxa uu garanayaa haddii moodku daayo bisha markay dhamaato waxa soo geli doona uu sii og yahay 200 baa soo geli doonta bisha markay dhamaato 5 baa soo geli doonta 6 baa soo geli doonta kaasi waa maxaa la yiraahdaa waa shaqaale waa qofka bisha intanay dhamaan ka hor sii og wuxuu qaadanayo because uu xadiday dhaqaale uu qaadanaya oo dhaqaale cayiman weey waa dhaqaale kooban oo macayna arsaaqada ilaahay laakiin taa maahine way ballaaran tahay oo qofka waxa uu furan habab kale oo uu sameyn karo dhaqaale aan xad lahayn walaalayaal sidoo kale qofku waxa uu dhaqaale u sameyn karaa inuu isagu wax yabto oo wax isku hagaajisto tusaale ahaan meherada hadaad furato oo xaafadda inta jaarkaaga u furato masaariifta wax laga yaabo inay kugu soo saarto laakiin markaad waqti dadaal baad geliso laakiin wax koritaana ma laha nolosha shaqaalanimaduna wax koritaana ma laha labadaas waa labada walaalayaal hab kale jirto qofku income ama dhaqaale u soo saari karo habka waxa loo yaqaan investor oo ah maalgashade waa qof lacagtiisu ay u shaqaynayso oo dhaqaale gelinaya dhaqaale badan buu meel gelinaya dhaqaalena waa uu ka rajeenaya qofka maxaa ku dhici kara loss baa jiri kara ama khasaara ku dhici kara Soomaa because markaad wax maal gashanayso faa'iido kuma xisaabtami kartid waxaad ku xisaabtamaysaa soo kale khasaare laakiin koritaan way leedahay oo dad badan oo wax weeyaan maalgashi ballaaran samaystay oo koritaan ballaaran dhaqaale sameeyay way jiraan koritaan maxaan ka wadnaa maanta waxaan inahayaa waa ganacsi koritaan leh marka tibaaxda ama ereyga koritaan macnihiisu muxuu yahay ereyga macnihiisu waxa weeye in maanta bishan salahan $100 ku soo gasho bisha damana 2 ku soo galaan bisha damana 3 ku soo galaan yaani inaad koritaan sameynayso oo wax cayiman oo go'an oo meel ku dhagan anad sugayn kaliya anad u xaadirayn Soomaa arsaaqada ilaahay waa waasic weey ma sha Allah arsaaqadaada inaad soo ururiso ma inay inaad wax weyn aad ku fikirto ma sha Allah haddaba walaalayaal hab afraad baa jira oo laga yaabo badankiin inaadan aqoon habkani waxa weeye waa inaad ma garanaysaa system aad haysato dad ayaa ku shaqaynaya systemkan wuxuu ku ogol yahay dadku inay kula shaqeeyaan oo dadka kula shaqaynaya ay ma garanaysaa dadaalkooga iyo dadaalkaaga la isku daray ay goolkaaga iyo hadafkaaga ay keenaan systemkani waa nidaam la xaqiijiyay waa nidaam hadda nusqarni ka badan adduunyada ka shaqeeya waxaana loo yaqaanaa network marketing yani inaad dhisato ma garanaysaa dad aad wada shaqaysaan oo team aad wada shaqaysaan oo teamnimaduna macnaheedu waxa weeye together we in more dhammaanteen markaynu gacmaha isqabsano guul baynu wada gaaraynaa marka nidaamkaas way nidaamkan inii hayo walaalayaal challenge badan baa jira caqabado badan baa dadkii haysta Soomaaliya haddaynu nahayna ay aad iyo aad u badan caqabadahaasi waxa kamid ah shaqo la'aan waxa kamid ah inta shaqaynayso shaqadii aan ku faraxsanayn tusaale ahaan dhalinyaradeennii 70% ma shaqeeyaan waa bilaa shaqo 70 soo harayna
15 kuma qanacsado shaqada hayaan kuma qanacsana sidoo kale in badan oo shaqaynaysa oo waxa jirta walaalayaal shaqada ay qabanayaan ay tahay shaqa maanta dhan ay ku maqan yihiin income-ka ay soo saarayaan ama dhaqaale ay soo saarayaana waad iyo aad u xadidan yahay maanta waxaan inii hayaa meel income-ka aad soo saaraysaan ama dhaqaale aad soo saaraysaan aanu ahayn mid xadidan meel ma garanaysaa dadaalkiina markaad la timaadaan aad guulo waaweyn aad ilaahay ka rajaynaysaan meel aad awooddaada kusoo bandhigayso meeshan waxaa loo yaqaanaa foriba macnaheedu waxa weeye waa meel la bilaabo qofku markuu bilaabana foriba insha allah uu ku jirayo weligii yani wax kuu soconaya yani wax ma garanaysaaye noloshaada dhan bedelaya oo noloshaada dhan saameyn ku yeelanaya anigu sanadii 9 bilood baa ku jira ganacsigani noloshayda intaan noolahay saameynta ay igu reebtay foriba weligeed maaha meel iga tegaysa because foriba ayaan ka shaqo bilaabay markaa saameyn weyn ayay noloshaydina ku yeelatay haddaba maxay tahay shirkadani goormaa la aasaasay imise qof baa ka shaqeeya shirkadda magaceega waxaa la yidhaahdaa oo dhammaystiran walaalayaal meel ku qorta foriba living product company baa la yidhaahdaa waxaa la aasaasay 1978 waana shirkad maraykana waxaana aasaasay Regis Morgan sababtii loo aasaasayna waxay ahayd in yani qof kastoo shirkaddan ka mid ah uu noqdo qof hantiilo ah maasha allah tabaarakallah maanta markaa shirkadda warbixinteeda miisiinayo waa shirkad doonaysa inaad hantiilo noqoto waa shirkad doonaysa Cusmaan inuu hantiilo noqdo waa shirkad doonaysa adigoo dhageysanayana inaad hantiilo noqoto maxaa ka wanaagsan walaalayaal sidoo kale walaalayaal shirkaddu waxayna leedahay waxaan hayaa productiyo dabiiciya adduunyada waxaan u hayaa wax caafimaadkooda kor u qaadaya oo tayo sarreeya labadaas sababood ayaan ma garanaysaa shirkaddan u samaynay sababtaan u samaynay maahan keliya inaan dhaqaalana uu ka helne waxay ahayd bulshada caalamku inay dhaqaale iyo caafimaad labadaba ay helaan maasha allah tabaarakallah labada maxaa ka wanaagsan adigoo caafimaadkaagii ka warhaya dhaqaale badanna helaya shirkadda waxaa aasaasay odagan inoo muuqda magaciisa waxaa la dhahdaa Regis baa la yidhaahdaa waqti xaadirkana wiilkiisa madaxweyne ka ah xarunta guud ee shirkaddu waa Maraykan laakiin innaga Soomaali ahaan waxaynu hoos tagnaa bariga dhexena waxay si toos ugu xidhan yihiin iyaguna Maraykanka maasha allah sidoo kale Kenya xarun kale ku taala Kenya waxay toos ugu xidhan tahay Maraykan alaabtu markaa Maraykan bay uga timaadaa sababtii ninkaas u aasaasayna waynu garanay 15 milyan oo qof baa ka shaqeeya walaalayaal shirkaddan su'aashaan rabo inaan weydiiyo waxa weeye Soomaali markaynu xisaabino imise milyan ayaa lagu qiyaasaa imise milyan ayaa Soomaali ahaan markaynu xisaabino lagu qiyaasi karaa walaalayaal runtii waxa lagu qiyaasaa Soomaali markaynu soo qaadno dad gaadhaya iska 20 milyan hadday ku bataan Soomaa meelaha 20 milyan baa la sheegay inay yihiin Soomaa bal qiyaas haddaba shirkada adiga maanta adiga oo hebela ama adigoo heblaaya aad ka shaqayn aad adigoo aasaastay oo intaasoo milyan oo qof ay ka shaqaynayaan walaalayaal shirkada maanta warbixinteeda aad qaadanaysaan waa shirkad noocaas ah Soomaa wax ilaahay lagu mahad naqo shirkad ma garanaysayay ninkan aasaasay markuu aasaasay wuxuu nin milyaneer u ahaa oo dhaqaale badan haysta ayuu ahaa sababtii ugu weynayd ee loo aasaasay waxay ahayd kaliya inaad adiga iyo anigu aan hantiilayaal ka noqono aynu nolol sare ka gaadhno ayay ahayd walaalayaal maasha allah tabaarakallah shirkadda maantaan inahayna waxa weeyaan waa shirkad la dhihi karo Soomaali oo dhan way waa dad leeg ama ku dhow ayaa ka shaqeeya 15 million people ayaa ka shaqeeya shirkaddani 15 milyan bal qiyaas maanta taabshiilo ka warrama ay Soomaali oo dhan ay wada shaqo tagayso bal ka warrama hormuuda Soomaali oo dhan wada shaqo tagayso ama Golis ama Tilison what would you feel maxaad dareemi lahaydeen maasha allah Soomaalida dhan hal shirkad bay ka shaqeeyaan dalin bal ka warrama haddaba shirkaddan Foriba dadka ka shaqeeya waa shirkad noocaas oo kala walaalayaal maasha allah tabaarakallah oo waxa weeyaan dad intaa leeg ay ka shaqeeyaan isku yimaadeen maxaa isku keenay haddaba 15 milyan tusaale ahaan waxa Soomaali oo dhan maanta hal shirkad kaliya ka wada shaqaysiin karaa ee ay iskugu iman karaan se wax weyn maaha walaalayaal wax yarba dadka intaa leeg intaasoo milyan waxa isku keenay adiga ma kula tahay inaad ma garanaysaa 15 milyan waxa qanciyay in adigu ku qancin waayo suuragal miyay tahay su'aashaasaan rabaa inaan ma garanaysaay in weydiiyo marka walaalayaal insha allah waxaan rajaynayaa inaad idinkuna malaayiinka qof ee adduunka joogta ee ka faa'iideysanaya fursaddan inaad noqotaan maasha allah walaaldan marka yaa durba isagoo leh sideen ku heli karaa insha allah warbixinta markaan dhameeyaan kugu jawaabi doonaa sidaad ku helayso bilyaneer weeye shirkaddani $2.6 bilyan ayay haysataa
sidoo kale walaalayaal asad bay leedahay aad u ballaaran oo bangiyada ugu jirta 169 wadan bay ka shaqaysaa marka 169 wadan adduunyada maxaa hadhayba waxba ma hadhinba almost adduunyada dhan baad ka shaqaysanaysaa meel kastoo maanta Soomaali joogto way kaga faa'iideysanayaan fursadan ما شاء الله قد الله صدم وضم ما انت قناع سيو كشقين يا فوريفا بالقياس ولا ليا صدم وضم معجزات كاي فوريفا يستوى كميدا ان انت سو مليون اوقف اي كشقيان ان سيدو كلام غرانيسا ادون كدنا كشقيسان كرتو واديغو ما انت مقدشو جوغي ادو ميشا دن جوغا ادالكا كشقيسان كرتو وا شركدان اني هيا ولا ليا بل كورما دبا انتنا برودكتيدن اني غلين انا حقي برودكتيدي انا غلين sidee baad u aragtaa shirkad noocaas walaalayaal sidee baad dareemi lahayd shirkadda intaas oo qof isku keentay sidee baad dareemi lahayd shirkad walaalo sanad ku jira maanta dhaqaaqeen uu ganacsiga ugu marayo ilaa 30 wadan how do you feel it maxaad dareemaysaa wax weyn sama walaalayaal maasha allah tabaarakallah waxaan hore u maqlay ayaa dareemaysaa saa rajaynayo waana siday tahay walaalayaal markaa koritaan dhammaystiran bay samaysaa shirkaddu xaggeeda inaga naga soo gashay Soomaali ahaan waxay naga soo gashay wadanada bariga dhexe gaar ahaan wadanka Imaaraadka Carabta wadanada Imaaraadka Carabta oo dhan waa kuwan maasha allah tabaarakallah shirkaddu waxay bixisaa walaalayaal qofkii dadaala hadiyada qaaliya ayay siisaa maasha allah oo aad iyo aad runtii qaaliya haddaba maxaynu ku dooranaynaa alaabtan shirkadda waxaynu ku dooranaa shirkaddani waxay soo saartaa alaabo dabiici oo natural ah waxayna ka soo saartaa ugu weyn geedka dacarta geedkan oo loo yaqaano geedka mucjisada because faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay waxay leedahay beero waaweyn oo geedkan laga soo saaro maalinta kaliya waxa lagu qiyaasaa ilaa 1 milyan oo geed inay ma garanaysaa shirkaddani goyso waayo 169 wadan baa sugaya in alaabteeda loo kala qaybiyo iyada ayaa iskale warshadaha iyada ayaa iskale dadka ka shaqaynaya geedaha iyo wax walba iyada ayaa iskale wax walba iyada iskale iyada ayaa xataa iskale ma garanaysaa dhakhaatiirta iyo dad walba iyada ka tirsan yihiin dhammaantoodba walaalayaal maasha allah tabaarakallah haddaba walaalayaal maasha allah tabaarakallah haddaba walaalayaal maxay alaabaha shirkaddu u qaybsamayaan wala su'aasha labaad weey alaabahani tayahan intee leeyihiin kulli dhamaantii waan iska garan karnaa shirkad intaas jirta intaas oo wadan ka shaqaynaysa waxa intaas oo dhan u saalayna waxay haysaa ay tahay suuqa ay haysato inay tahay ma iska garanaa qofka soo aqli lagu garanaya Soomaa ilaa maanta adii shirkadaadu intaas oo wadan ka shaqayso ciyaar ma ahine maanta shirkadaad samayso inay 169 wadan laga ogolaado oo ay ka shaqayso oo dadkii dhulka ku noolaa ay alaabteeda isticmaalaan ay ka faa'iideystaan maxaa u sahli karaa waxaaga wanaagsan un baa u sahli karaa Soomaa waxaad iib geynaysaa dadka la timiya adduunyada la timiday un baa ku sahli karaa kow adduunyada waxay la soo gashay alaabo dabiici oo natural oo caafimaadka qofka kor u qaadaya waxa kamid ah kuwa xalinaya ciladaha caloosha sida gaaska Soomaalida inoogu badan waa dabiici waa natural maaha daawooyin laakiin waa alaabo dabiici oo supplement la dhaaweey iyo nafaqeeyaal dabiiciya vitamins way qaybihi taranka ku jira ragga iyo dumarka lafa xanuunkiiba ku jira jilba xanuunkiiba ku jira product loo isticmaalayo alaabtaad bay u badan tahay dadkii macaanka qabay kuwii dhiigkarka qabay ee daawooyinna la'aa ayaa productyadan dabiiciga isticmaalaya caafimaadkooda ku daryeelaya difaacoogana kor ugu qaadaya maasha allah tabaarakallah qaybaha miisaanka maasha allah saacadda imkaad la hadlayo waxa laga soo hadlayay Saudi Arabia waxana laga dalbanay programka C9 ayaa laga dalbanay maasha allah tabaarakallah imikadan ayaa walaalayaal laga dalbanayay xaqiiqatan maasha allah waxa soo dhan waxa sahlaya waxa weey waxa soo dhan waxa sahlaya waa product tayadiisa hadda waxa kamid ahayd waa kana dadkii ugu dambeeyay ee aan la hadlay maasha allah mar dhaweyd maasha allah dadkan maasha allah sorry hadda inantan walaasheenad arkaysaan oo idinkana arkay maanta ay la soo hadashay Saudi Arabia joogta iyadoo Saudi Arabia joogta ayay soo raayso tan lambarkay wada arkaysaan Soomaa maasha allah waxay iga soo dalbatay programka C9ka ayaa walaalayaal iga soo dalbatay waxayna iga soo raadisay meel loo yahay waa la soo tilmaamay bay tiri Saudi bay iga soo raadisay ku heli karaa bay tiri wal qiyaas hadaba alaabta halka laga soo raadinay walaalayaal aniga Faransiiska joogaalka iga soo raadinaysa imagine it walaalayaal adiga muqdisho joogaalka laga soo raadin doona maasha allah marka qaybta labaad waa qaybta miisaanka waa maareynta miisaanka miisaan dhimista iyo miisaan kordhinta weey labadan laba program oo aad iyo aad u muhiim ah 9 maalmood kaliya ayaa miisaankaaga ilaa 12 kiilo uu ka ridi karaa qaybihii qurxinta ayaa ku jira sidoo kale waxa kamid ah kariimaad dabiiciya
oo finankii wejiga kaa xalinaya daldalooladii wejiga haarihii wejiga madmadowgii wejiga gudguduudkii wejiga dhammaan waxyaabahaasoo dhan alaabo kaa xalinaya ayaa jira walaalayaal waxaa jira timaha daadanaya timaha jajabaya maasha allah tabaaraka alaabo ka xalinaya jira sidoo kale waxaa jira productiyo ka xalinaya ma garanaysaa fitaminada ciyaalka oo kale maasha allah anti agingkii wixii oo dhan alaabtii oo dhan qurxintii oo dhan baa inoo taalla daawadii ilkaha ee lagu daryeelaya ilkaha iyo afkaba ayaa inoo taalla waxyaabo badan iyaduna xalinaysa cilladaha ilkaha ku yimaada ilkaha ma garanaysaa waxa weeyaan midabkoogu doorsoomayo alaabo runtii aad iyo aad u badan baa nin hayaa walaalayaal waxaa ka mida ma garanaysaa saabuuno dabiiciya maasha allah alaabta aad iyo aad bay u ballaaran tahay diyodaroonadii baa ka mida waxaasoo dhan baynu haynaa dadkeenina ay u baahan yihiin waxaasoo dhan baad ka faa'iidaysan doontaan haddaba walaalayaal yaa u baahan alaabtani ama se yaa kaa iibsan doona alaabtan waxaa u baahan oo kaa iibsan doona qof kasta oo ma garanaysaa waxa weeyaan danaynaya productyadani maasha allah qof kasta ayaa u baahan anigaa u baahan adigaa u baahan familigaaga caawa intaasoo qof kula joogaan oo u baahan waayahay sidee baad haddaba uga faa'iidaysanaysaa waxaad uga faa'iidaysanaysaan laba hab walaalayaal ugu horreyn shirkadda ayaad gudaha soo gali waad isdiiwaangelin alaabtiibaa ma garanaysaa ayaa dalban qiimo dhimis baa lagu samayn waad sii tafaariiqayn waxaad ku iibin qiimaha shirkaddu ku iibi ku tiri ayaad ku iibin faa'iida ayaa kuugu jirta shirkadduna waxay kaa siin qiimo dhimis go-aan bay kaa siin qiimaha suuqa shirkadda ayaa xadida adig keliya waxaa lagaa doonayaa waradhaga inaad qaado oo dadka ka sii iibiso maasha allah dhaqaalo fiican baa dadka ka soo gala sidoo kale walaalayaal dad kale ayaad raadin dadka kalena waxa weeyaan waa nidaamka kale shirkaddan dhaqaalo looga sameeyo iyaguna ma garanaysa alaabtan sii iibgeeya oo sii tafaariiqeeya marka adiguna dhinac baad ka iibin dadka kalena dhinac bay ka iibin labada dhinacba faa'iida kaa soo gelaya dadkani waxay iibiyaan ad ku soo xidhay waxbaad ku heli doontaa adigu waxaad iibisana dee percentage baad ku leedahay because adigu waxa lagu siinaya qiimo dhimis gooniya lagu siinaya walaalayaal haddaba maxaa ka mid a faa'iidooyinka dadka aad ku soo xidhayso shirkadda lambar kow waxaad samaynaysaa dhaqaalaan xal lahayn lambar laba saacad ilaa saacadaad doontaad shaqaynaysaa lambar afar tababar baad helaysaa buuxa lambar shan gool iyo hadafaa lagula dejinayaa lambar lix waxa weeyaan fursad caalamiya adduunka dhan baad ka shaqaysanaysaa lambar toddoba hadiyado qaaliya ayaad heli doontaa oo ay ka mid tahay hadiyadda gaadhiga hadiyadda dalxiiska hadiyadda la idhaahdo ma garanaysaa inaad jeeg ku yeelato shirkadda haddaba maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa alaabta inaad isticmaasho because markaad isticmaasho way kuu fududaanaysaa alaabta inaad iibiso maxaa lagaa rabaayoo kale inaad macaamiishii la sheergarayso oo dadka alaabtii aad isticmaalaysay anigaa isticmaalay haar baan lahaa miisaan fara badan baan lahaa maantana way kan isbeddelkii kugu yimiday dadka inaad la wadaagto ayaa dhaqaalo badan ku samaynaysaa macaamiil ayaa kuu samaysmi doonta qaarkiin baa laga yaabaa hadda inaad isweydiinaysa macaamiisha aaway macaamiil alaabti ma haysano macaamiishu kaama soo horreyso way kaa dambeeyaan macaamiisha adigaa lagaa rabaa inaad create garayso adigaa lagaa rabaa inaad samayso macaamiisha waaya sidoo kale walaalayaal build a team baad samaynaysaa kula iibgeeya shirkadda dadkaasina waa dad alaabtan iyaguna kasii faa'iidaysta oo ma garanaysaa qiimo dhimis loo sameeyo waxay iibiyaan percentage ayaad ku yeelanaysaa qodobka kale lagaa doonaya waxa weeye coach others dadka kale inaad coach garayso ayaa lagaa doonayaa maasha allah tabaaraka allah haddaba walaalaha qaaliga ahow walaalaha qiimaha leh waxaan nii sheegaya darajo muhiima oo shirkadda dhexdeeda aad iyo aad uga muhiima darajadan waxaa loo yaqaanaa manager marka caawa waxaan rabaa managerku runtii faa'iidooyin fara badan buu helaa talxiisyo badan buu helaa alaabta qiimo dhimista halka ugu dambaysa ayaa loo gaadhsiiyaa waxaan doonayaa inaan nii sheego dariiqii ugu fududaa ama dariiqii aad ku tegi lahaydeen manager why you would like to become manager maxay tahay sababtaad u doonayso manager inaad noqoto qof kastoo inaga mid ah markii hore waxa lagu soo sameeyey yacni xidhiidh baa lala soo sameeyey kadib waxa weeyaan ma garanaysaa barnaamijka lagu soo xidhay warbixin saamayn noloshiisii kula aad iyo aad uga helay ayaa waxa weeyaan walkan ka qaadan doonaa noloshiisii iyo hadafkiisii buu ka dhex arki doonaa deeta go-aankii buu qaadan wuu isdiiwaangelin doonaa waxaa lala qorshayn doonaa siduu manager ku noqon lahaa dariiqii baa la tusi doonaa halkaasuu mari doonaa markuu manager shirkadda ka noqdo maxaa xigi doonaa noloshiisoo isbedeshaa xigi doonta gawaadhi uu shirkadda ka helo ayuu xaq u yeelan doonaa dalxiisyadii shirkadda inaad shaksi ahaan horu marto oo koritaan shaksiyadaad samayso xorriye dhaqaale inaad hesho dhammaan waxyaabahaasoo dhan buu managerku ku siinaya insha allah haddaba maxaa lagaa doonayaa si aad manager u noqoto maxaa lagaa doonayaa si aad ganacsigan uga dhigto mid guulaysta waxaa lagaa doonayaa marka hore walaalayaal inaad taqaano cabirka lagu cabiro dhammaan darajooyinka iyo shirkaddan lagu cabira lagaa doonayaa cabirkaas waxaa la yidhaahdaa cabir cc la yidhaha weeyi waa case credit weeyi case credit-kani wax kala maayine waa lacag weeyi walaalayaal
because product kasta oo shirkadani soo saarto wuxuu leeyahay cabir gooni oo shirkadda u gaara maadaama ay shirkaddu ka shaqaysto wadano kala duwan oo ay shirkaddu isticmaasho lacag kala duwan si productiga shirkadda loo mideeyo si dadka ka shaqeynaya shirkadda loo mideeyo ayaa waxay samaysay cabir guud ama halbeeg guud bay samaysay halbeegana CC baa la yiraahdaa tusaale ahaan halkan waxaan arkaysaan deodorant waa baalkii la kalankisha loo isticmaalay weeyi faa'iidooyin fara badan buu leeyahay ilaa hal sano ayuu ku haynayaa maasha Allah alcoholna ma laha shirkaagana kuma dhagayo faa'iidooyin badan buu leeyahay laakiin alaabta si gaar ah u baran doontaan tayada iyo faa'iidada ay leeyihiin shay baad u baran doontaane hoos waxa ka hooseeyay CC-giisii ama cabirkiisii maanta Faransiiska markaan joogo qiimo ayuu igu joogaa euro ahaan wadanka kalena qiimo kale ku joogaa wadan kasta qiimo ku joogaa laakiin haddaad maanta 10 xabo aad iibsato oo deodorant intaan baad isku dhufsan doontaa intaasoo CC baad xisaabsan doontaa ma xisaabsan doonto intaasoo dollar ma xisaabsan doonto dollarku waa lacag gooniya shilinkuna waa lacag gooniya walaalayaal dhammaan productyadan oo dhan waa kuwan iyagana CC-ga ku hoos qoran haddaba meelaha ay dhaqaale qofku ka soo galo waxa ka mid ah alaabta oo dhaqaale ilaa $550 ku sameeyo inuu team sameeyo ama dad alaabta suuq geeyo uu sameeyo qofku iyadana ilaa $2,000 buu ku sameeyaa qofku sidoo kale waxa dhaqaale ilaa $25,000 gaaraya lagu sameeyaa inaad ma garanaysaa hadiyadaha shirkadda iyo darajood yacni dariiqa saddexaad uu ku bilaamo saddexdaa dariiq ayaa dhaqaale loo sameeyaa maanta waxaan raadinayaa haddaba dad ma garanaysaa saddexda nooc u shaqaysta marka hore isdiiwaangeliya shirkaddii iska diiwaangeliya alaabtii ka faa'iidaysta dhaqaale bishii intaa leeg sameeya ugu yaraan insha allahu tacaala sidoo kale waxaan raadinayaa dad kale la sii wadaago warbixinta oo team sameeya dhaqaale intaa leeg bishii soo xireeya sidoo kale waxaan raadinayaa dariiqa saddexaad dad ku shaqaysta oo iyaguna ma garanaysaa waxa weeyaan business developer noqda maasha allah way kala horeeyaan marka hore alaabta dalban kabacdi teamkii baa kuu bilaami teamkaagu markuu koreed manager noqoto dariiqa saddexaad baa kuu bilaami saddexda dariiqood ba alxamdulillah sanad gudaheed baan ku gaadhay haddaba maxaa lagaa doonaya walaalayaal waxaa lagaa doonaya marka hore inaad isdiiwaangeliso 5% discount ayaad heli doontaa kadib waxa weeyaan ma garanaysaa darajadii koobaad ee shirkadda ayaa lagula qorshayn doonaa darajada koobaadna waxaa lagu buuxiyaa 2 CC labadaas CC-na waxay u dhigmaan Hargeysa markaan joogno meel ku qorta $480 bay ku dhigmaan hal mar haddaad wada buuxisana wada awoodaa 2 jeer haddaad kala buuxisana wada awoodaa 3 jeer haddaad buuxisana wada awoodaa qiimaha ugu yara qofku ku bilaabaya waa $75 weeyi laakiin waxa weeyaan waxa u fiican inuu ku bilaabo halkaasi 2 CC inuu ku bilaabo hadduu awoodi waayo inuu 1 CC ku bilaabo ayaa wanaagsan muhiimaddu waxa weeyaan laakiin qofku inuu soo galo haddaad doonto inta u yarba ku bilaawo muhiimad inaad bilowdo weeyi maasha allah kadib walaalayaal waxa weeyaan ma garanaysaa ayay dalabka yar baad ku bilaabi oo $75 ama se waxaad ku bilaabi dalabka fiican labada CC $480 adiga ayaa awood leh marka waxaad haysataa muddo 2 bilood gudaheeda inaad darajadii aad ku buuxiso labada CC ama $480 aad ku buuxiso ayaad awoodaa kabacdi teamkii baa kuu bilaabmi alaabtina way kuu jami dadkii baad la wadaagi qof kastaad ku soo dartana waxaad heli doontaa $140 qofkaas qiimo dhimista loo sameeyo oo ah 5% iyo adiga qiimo dhimista aad haysato oo ah 35% ayaad kala goyn 30% baa kuu soo hadhi haddii $480 lagu dhufto waa dhaqaale ilaa $140 gaadhaya qof kasta oo shirkadda ku soo darto dhaqaale intaa leeg baad ka samayn lacag badan mayna ahayn walaalayaal maasha allah tabarakallah waa ganacsi aad si roofku ku bilaabayso laakiin guulo waaweyn aad ka rajaynayso teamka aad ku soo xidhay iyo adiga dadaalkiina oo la isku daray supervisor baa shirkadda uga dhex noqon doontaa dhaqaalaha lagu sameeyo qofka supervisorkiina waa $200 ilaa $700 mar kale qiimo dhimistii baa isbedeli oo 38 noqon lacag kale oo bonus ku bilaami sidoo kale assistant manager baad noqon oo aad darajada ku xigta dadaalkii baad sii kordhin teamkaagina waad la qorshayn oo waad sii caawin macaamiishaada alaabta ay ka iibsadaan iyo teamkaaga macaamiisha alaabta ay ka sii iibsadaan iibka ay sameeyaan guud ahaan assistant manager baad ku noqon mar kale alaabtii baa kuu jabi 43% maasha allah group bonuska ama dadkii aad keentay bishii hore kuway sii keeneen xataa iyo kuwii kale sii keeneenba dhammaan geedkii ka tafiirmay komishonaad baad ku yeelan doontaa waxa kuga xiga manager maxaa nidhi walaalayaal waa darajo qaali oo runtii muhiima weeyi waa darajo qof kastoo guul jecel uu yimaado inuu doonayo qof kastay ka go'an tahay inuu ganacsigan guul ka gaadho waa darajo aan ku qalqaalin inuu manager ka noqdo manager haddaad noqoto maxaad faa'iidi doontaa waxaad faa'iidi doontaa dhammaan darajooyinkii kale wixii aad faa'iidaysay maxay ahayd waxyaabii aad faa'iidaysay dhaqaalahaaga commissionka ee shirkadda ee dadka aad ku soo xidhayso oo kuu kordha kow lambar 2 alaabta kuu jabta labadaas aad faa'iidaysay soo maaha waa commissionka kuu kordha iyo ma garanaysaa waxa weeyaan alaabta qiimaha oo kuu jaba managerkana sidoo kale ayaad faa'iidaysaa oo mar kale alaabtii baa kuu jabi 48 bay noqon sidoo kale walaalayaal
waxaad faa'iidi doontaa in commissionkii kuu siyaado maasha allah tabaaraka allah group bonuskaagina kuu ballaadho managerka maxaa ku xiga waxa ku xiga senior manager laba qof oo manageraad soo saari senior manager baad noqon kabacdi 5 qof oo manager ayaad soo saari waxaad noqon sorry manager kadib waxaad noqon safar manager 9 qof oo manager ilaa dheema safar manager laga gaadhayo oo aad soo saarayso 25 qof oo manager ah maasha allah hadda qofkan aad arkaysaan bishii koobaad waxa uu faa'iiday $80 bishii labaadna waxa uu faa'iiday $278 bishii ku xigtana waxa uu faa'iiday $610 ma jirtaa shaqo maanta ku siinaysa intaad maanta ka shaqo bilowdo 3 bilood gudaheed bishaarka say kugu kordhinayso halka kugu gaarsiinaysa miyay jirtaa walaalayaal maya ma jirto halka waxay naga muuqda Dr. Ahmed oo runtii bishii 9 inkamkiisu ahaa ilaa 9,000 bishii ku xigtana 11,000 maasha allah tabarakallah bishii ku sii xigtana 15,000 maasha allah hargeysuu joogaa dhaqaalaha inta leegna uu samaynayaa maanta kumayaal buu sameeyaa haddaba markaad managerka noqoto waxa ku xiga waxa weeye waa hadiyadihii hadiyadda waxa kugu soo horeysa hadiyadda gaadhiga hadiyadana waxa lagu sameeyaa walaalayaal dhaqaale gaadhaya ilaa iyo 28,000 waa 14,000 ilaa 16,000 bay u dhaxaysaa waana 3 darajo weeyaan oo kala gaadhi kala duwan weey gaadhiga koobaad waa 14,000 gaadhiga labaadna waa 21,000 gaadhiga saddexaadna waa 28,000 dhammaan waad u qalantaaye adigu hoos ay isku quursan hoos adigu ay isku dhigin marnaba haamini ma qaban kartid waad qaban kartaa because walaalo kula joogaa qabtay because waxa weeyaan magaalada joogta ayaa maanta waxa weeyaan laga yaabaa waddanka joogto ayaa lagu wataa waxa weeyaan ma garanaysaa muddo gaaban gudaheed dhowr bilood gudaheed ayaa lagu gaadhay marka you can do it waad qaban kartaa waxa ku xiga waa dalxiiskii walaalayaal waana qofku markuu managerka noqdo maasha allah dadkan halkaasaan wadada gaadhiga ku guuleystay weeyaan walaalayaal halka waxay nooga muuqda Aisha iyo Mustafa oo iyaguna ku guuleystay dalxiisyadooda sanado badan ku enjoy gareeya dalxiiskoogii waxay ka sameeyeen ganacsi guuleystay shirkadani waxay ahaayeen marka hore macaamiil alaabta isticmaashay si yar oo fudud bay ganacsigan ku heleen way rumaysteen wayna aamineen wayna ka gungaadheen maasha allah tabaarakallah maanta waxa weeyaan malaayiin dollar bay ka sameeyeen dhaqaale gaadhaya halkan waxay noogu ka arkaysaan Jane Leach waxay teamkayga weeyaan kani dhaqaale aad iyo aad u badan ayaa walaalayaal ay ka samaysay bal Jane Leach baan arkay hadda iyadoo ma garanaysaa waxa weeye YouTube-kayga waa kan maasha allah waa kan in 1995 Jane Leach waxay noqotay qofka ugu sarreeya xagga dhaqaale ahaan UK isla markaana waxay sii kordhisay ganacsigeega adduunka oo dhan sanadkii 2007 iyada iyo odaygeega oo ah ma garanaysaa ninkan aad arkaysaan waxa ay ma garanaysaa waxa loo aqoonsaday dadka dhan ee shirkadda ma garanaysaa hogaamiya 20 sano ka bacdi oo xarakaad iyo firfircooni fara badan iyo jacayl fara badan isku jira oo ay shirkaddan gelisay oo ay focus lahayd waxna doonaysay qofku waa inuu garanayo waxa uu doonayo forifo waa inaad ka garanaysa waxa doonayso focus waa inaad leedahay tusaale manager baad doonaysaa inaad noqoto waa inaad focus leedahay gaadhigaad doonaysaa waa inaad focus leedahay waxa weeyaan Jane waxay maanta hogaaminaysaa oo hoggaanka u haysaa ganacsi guuleystay oo ay ka samaysay multi-million dollar maasha allah waa dhaqaale aad iyo aad u ballaaran walaalayaal UK oo keliya dhaqaalaha ka samaysay iyo ma garanaysaa bonuska oo keliya waa lacagta bonuska lacagtii bishu kuma jirto walaalayaal lacagtan ka hadlayno sidoo kale waxay heshay ilaa 3 milyan oo dollar ayay dhaqaalaha ku samaysay dhaqaalahani kuma jiro ma garanaysaa dhaqaalaha bishii ay hesho alaabtii kuma jirto waa lacagta jeeg oo keliya weeyaan Jane Beliefs waxay aaminsan tahay Jane qof kastoo dadaala gabadhan weeyaan hadii la hadlayso walaalayaal qof kastoo dadaalo oo go'aan leh isla markaana u diyaar garoobay shaqo dhammaystiran qabto inuu gaadhi karo isla markaana dhisi karo ganacsi guuleystay waa tan Jane Leach oo jeegay kor haysa halkan imise kor haysa walaalayaal bal fiiriya waa imise milyan miyaana gaadhi karin dhaqaalahan ay samaysay miyaana samayn karin haydhihin ma samayn karo because haddaad tiraahdo ma samayn karo waxay noqonaysaa ma garanaysaa wuxuu qof gaadhay oo bilaadani uu gaadhay inaad gaadho waa inaad maskaxdaada ma garanaysaa waayaan ku aad jirto halkan waa tiimkii Sacuudi Carabiya walaashan Aisha oo walaal Soomaaliyeed ayaa sabab u ahayd inay noloshooda isbedesho dadkani maasha allah waa tan la dabaaldegaysa Aisha dhaqaalaha ugu yara la bixiya waa ilaa $3,000 weeyi Aisha iyo Mustafa markii koobaad ay jeegan ku guuleystay waxay ahayd 16 bay ahayd walaalayaal 25 buu gaadhay sanadkii ku xigayna dhaqaalihii waa loo kordhiyey because dadaalkii iyo dadka ay caawinayeen bay sii kordhiyeen ilaa 6 qof bay geeyeen meeshii dhaqaalihii wuxuu gaadhay
ما تقانا يي إلا 349 كن بقاري سنة كي كحجنا ولا لوسي كوري دقالي وحو قاري 389 كن ما شاء الله تبارك الله هلك waxay niga muuqdaan roll ticket waxa uu gaadhay dhaqaalihiisu 1 milyan iyo 300 kun buu gaadhaa sanad kasta milyan kama soo daado haddaba maxaa laga doonayaa walaalayaal waxa laga doonay yaa kaliya inaad isdiiwaan geliso oo shirkadii ka mid noqoto oo aad dalabkii samayso ama dalabka yar samee ama dalabka weyn samee muhiimaddu waa inaad fursaddan ka faa'iidaysato fursaddu waa hal mar maanta aad haysataa inaad malaayiin dollar samayso maanta ayaad haysataa inaad tallaabadii aad cagta saarto maanta ayaad haysataa jaaniskaad noloshaada ku horumarin lahayd maanta ayaad haysataa meel aanad ka qoomamayn karin maanta ayaad haysataa meel aanad ku khasaarayn maanta ayaad haysataa meel aad awooddaada ku tijaabin karto maanta ayaad haysataa maxay jaanis buuxa ilaahay maanta inaad ugu mahadnoqdaa la doonayaa kabacdi go-aanaad gaadha la doonayaa aadan dhegaysan ma garanaysa naftaada hadday ku tiraa ma qaban kartid been bay kuu sheegaysaa walaalayaal waxyaabaha cadowga ka ku ah shaydaanka ama waswaaska ee dadka qaarkii nafteena waxan oo dhanba waxa weeye waxyaabo cadowga waa marnaba wanaagaaga kula jeclin weeye tusaalaan waxaad arkaysaan salaadii subax iyadoo joogta naftaadu ma jecla marnaba inaad kacdo way kugu dhejinaysaa soo maha ma jecla horumar kulama doonayso janno kulama doonayso waxa weeye markaa naftaadu marnaba inay ku wadin laakiin adigu meesha saxda u arkayso ee dariiqa saxda u arkayso inaad jeexdo ayaa lagaa doonayaa cabsida beenta jooji aamin serious u qaada ganacsigan waa ganacsi dhammaystiran guulo waaweyn aad ka gaari karto because walaalo badan oo guulo waaweyn ka gaadhay baa jira daba maxaa lagaa doonaya markaa isdiiwaangeli waa lacag la-aan isdiiwaangelintu dalabkii baa lagula samaynayaa kabacdi dalabkii marka lagula sameeyo laba cc haddaad ku bilowda 480 isla markaaba tiimkii baad samaysan haddii kalese hal cc baad ku bilaabi haddaanad awoodinna dee waxaad ku bilaabi ma garanaysaa wixii kalead awoodo ayaad ku bilaabi doontaa nasiib wanaagsan walaalayaal soo dhawaada dhammaantiin kabacdi kulan baa lagula yeelan doonaa managerkaaga ayaa kula kulmi doona shirkaddan kaaga soo horreeyey wuxuu kula qorsheyn doonaa siduu manager ku noqday isagu iyo adigu saad ku noqon lahayd insha allahu tacaala soo dhawaada walaalayaal intaasay inoogu dhantahay warbixintii aad iyo aad baad u mahadsan tihiin guul badan baa idiin rajaynayaa soo dhawaada insha allah